markana Djibouti madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa boqosho rasmi ah ku tagay dalka Djibouti. Boqoshadan waxay noqonaysaa tii ugu horeysay ee uu muddo 20 sano ka badan madaxweynaha Faransiiska uu ku tago wadanka Djibouti. Madaxweyne Macron ayaa markii ugu horeysay si kafool ula kulmay dhigiisa wadanka Djibouti madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle waxaana labada hogaamiye ay ka wada hadleen xiriirka ka dhaxeeya labada wadan sidii loo xoojin lahaa. Shir jaraa'id oo ay wada qabteen ayaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle waxa uu ku yiri sida tan: mudane madaxweyne wadankaagu waxa uu ku talagali karaa Djibouti oo saaxiibtinimo taariikhi ah ay kala dhaxayso Faransiiska inaan ka wada shaqeyno horumarinta danaha labada dal. Arrimaha caalamka wada tashigeena waxa uu suurtageliyay in aragti mid ah aan ka yeelano arrimo fara badan sida difaacidda aragti wadaaga, wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo horumarinta tamarta. Waxaan jecelahay inaan idinkaga mahadceliyo mudane madaxweyne go'aankii uu Faransiisku ka qaatay qaraarkii golaha qaramada midoobay ee 2444 ee ku aadanaa muranka sohdinta u dhaxeeya Djibouti iyo Eritrea. madaxweyne Macron oo isna shirka jaraa'id ka hadlay ayaa waxa uu yiri: Jamhuuriyadda Djibouti waxaa ku yaala saldhigga ugu horeeyay ee Faransiisku ka dhisto meel ka baxsan wadankiisa oo ay ciidan badanna joogaan. Waxa uu saldhiggani ka shaqeeyaa ilaalinta ammaanka Faransiiska ee dibadda. Djibouti waa goob muhiim ah, wax badan ayaanan wadaagnaa. Iskaashiga ayaa waxa kale uu yahay dhanka ammaanka iyo la dagaalanka argagixisada. Djibouti waxa ay door muhiim ah ka ciyaartaa ammaanka Soomaaliya oo ay ciidanka Djibouti qayb ka yihiin howlgalka AMISOM ee Soomaaliya. madaxweyne Macron waxa sidoo kale uu booqday saldhigga ciidamada Faransiiska ee Djibouti kaasi oo ah kan ugu weyn ee Faransiisku uu ku leeyahay meel ka baxsan wadankiisa. saldhigga waxa jooga ilaa iyo 1450 askari. wariyaha BBC-da Maxamuud Cismaan Bulxan ayaa warkan nooga soo diray Djibouti. Djibouti oo hore u guumeystay Faransiisku ayaa waxa ay tahay meesha kaliya uu ka soo galay gobolka Geeska Afrika waana halka kaliya Faransiisku looga hadlo. Booqashada madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli muddo dheer ay ugu dambeysay madaxweynaha Faransiiska inuu Djibouti soo booqdo iyadoo ay jiraan isbeddello xooggan oo ka socda gobolka Geeska Afrika. ayaa Djibouti waxa saldhig ku leh dalalka Shiinaha iyo Mareykanka. muddooyinka ugu dambeeyay waxa xumaa xiriirka u dhaxeeya Djibouti iyo Faransiiska. kulankan waxa uu yahay dhexmaray labada madaxweyne mid lagu xoojinayo iskaashiga dhanka ammaanka dhaqaalaha shirkad abuurka oo Faransiisku door muhiim ah u sheegay inuu ka qaadan doono. safarka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa ay tahay mid uu ku maray dalalka gobolka Geeska Afrika. haddaba waxaa magaalada Bristol ee wadankan UK qadka si toos ah ugu jira Caarif Cabdi Khayre oo ka faalooda arrimaha wadanka Djibouti. waad mahadsan tahay inaad nagu soo biirto Caarif. boqoshada madaxweynaha wadanka Faransiiska maxaa laga akhrisan karaa muddo dheer kadib markii ugu horeysay madaxweynaha Faransiiska Djibouti uu tago? ta ugu horeysay laga akhrisan karo waxay tahay muhiimadda uu Faransiisku siinayo dalka Jamhuuriyadda Djibouti iyaday geeska Afrika ka socoto isbedelo weyn oo saameyn ku leh bulshadii iyo siyaasadda iyo military iyo dhinac walba. xilliga Faransiisku inuu dib u xaqiijiyo xiriirkii taariikhiga ahaa ee ka dhaxeeyay labada dal inuuna isbeddelkaasi wax saameyn ku yeelanayn. taas waa kow wata horeysa. laakiin xiriirkooda labada dhinac muddaba ma wanaagsanayn marka ma la is oran karaa marka boqoshadan wax weyn bay ka bedeli doontaa? waa run oo xiriirkaasi kolley madmadow laa iyo muddada badan uu soo dhexgalay. waxaan oran karnaa laa iyo markii nin xaakin ahaa Djibouti waa lagu dilay la yidhi oo Juge Borrell la oran jiray ay cadaaladda Faransiiska tiri ninkaasi wuu is dilay. haddana markii labaad iyadu uu dib u ay tiri waa la dilay. aniguna aan aaminsanahay inuu yahay arrinkaasi arrin Faransiis dhexdiisa u dhaxeeya laakiin yaa madmadowga keenay 22 sanadoodba. laakiin dhinaca Djibouti waxay tirsanaysaa dawladda Djibouti ay mar walba ku celisaa inay casuumad iyo ragga maalgashiga Faransiiska wadankan inay ku sameystaan sare iyo hoosba way ula hadashay laakiin waxaad moodaa inayna ragga maalqabeennada Faransiiska dhagjala qusin. waxaaba ku ajburayna Djibouti inay wadano kale xiriir la sameeysato ay Shiinaha iyo kamid yihiin. waa gartay Shiinaha soo hadal qaaday ma isleedahay marka Faransiisku hawlahaas hadda uu ka wado Shiinuhu Djibouti awood u leeyahay inuu asaguna wax ka geysto xiriirka?
shiinuhu imika de Faransiisku dhaqaale ahaan shiinaha uma dhigmi karo laakiin Faransiisku wuxuu gadwadeen ka yahay reer galbeedka oo dhanba waan gartay xiliga shiinuhu imika waan gartay shiinuhuna haye ay shiinuhuna de dhaqaalaha Djibouti imika xiliga aad u eegtid produit intérieur brut waxa la yiraahdaa amba PIB-ga boqolkii bank mondialku wuxuu ku sheegaa wax boqolkiiba boqol ka badan hadii tolide inuu in gaaraysa inay Djibouti deyn lagu leeyahay waan gartay caarif ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waqtigan uu naga dhamaanaya in ma suurtagal ma tahay maadaama Ismaaciil Cumar Geele muddo badan oo 20 sano iyo uu xukunka hayay dadkan wadamada reer galbeedkana dimuqraadiyadda iyo waxa iyo inta badan ay eegaan in xiriirka u dhaxeeya isaga iyo Faransiiska wadamada uu ka mid yahay in ay taa saameyn ku yeelato muddada dheer oo xilka haya de maanta xilligii madaxweynaha Faransiiska iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti shirka jaraa'id isku garab qaranayeen nin Faransiis ayaa su'aal weydiiyay oo wuxuu ku soo hal qabsaday madaxweynaha Algeria ee imika ka tanaasulay inuu mar shanaad ku noqdo madaxweynaha Faransiiskina arinka aad baan u soo dhaweynaynaa buu yiri laakiin madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti kamuu jawaabin su'aasha xilliga calaamatu su'aal ba xaga saaran baan u maleynayaa والله يعلم